dalka Kanada waxa caan ka ah maqaaxida loo yaqaan Gala Canada oo inta badan dhalinyarada ku yimaada tahriibka badan ee qardoofka leh ee ay soo maraan wadamo badan oo Latin America ah ay ku yimaadaan kumanaan dhalinyaro ah oo Soomaali ah dalka Kanada ay ku soo galaan iyadoo goobtanina ay noqotay goobta ugu caansan ee isku yimaadaan dhalinyaradaasi waxaanay tahay maqaaxidani sida aad magaceeda ka aragtaan Gala Canada oo ay bahda Soomaalida oo dhan iskugu timaado maqaaxidan ayaa waxa ay fursad u siisaa dhalinyarada inay ilaaliso markay bilaa shaqo noqdaan markay soo degaan ee ugu horeysana ay dhalinyaradani ay fursad siiyaan in la siiyo mustayaasha gooyaasha iyo adeegyada kala duwan sidoo kale qofka shaqaynaya markuu shaqada ka soo fadhiisto waxa uu fursado kala duwan u helaa inuu goobtan cuntadiisa iyo adeegiisa ku qornaan karo goobtani ayaa waxa ay tahay ama dabeecadaha ay leedahay Gala Canada mid ku yarinta badan dhaqamada Soomaalida guud ahaanba dunida oo aan inta badan la arag in fursadan oo kale qofka Soomaaliga ah ee waddan shisheeye imaada aanu sidaas u helin in ka badan 500 oo dhalinyaro ayaa ii sheegeen maamulka Gala Canada inay fursadaasi ay siiyeen Maxamed Cabdi Cable TV Gala Canada